wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleebaan Axmed Ciise Kaar Xagle Toosiye ayaa dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa. wasiirka hore uga mid ahaa wafdi wasiiro u kictimay dalkaasi Kenya waxa uu saxaafadda uga warbixiyay kulamo kala duwan oo ku soo qaatay dalkaasi Kenya. dhinaca kale wasiirka caafimaadka ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wararka sheegay inuu mar kale ahaankiisa ka muujin doono xisbiga mucaaridka sidoo kale wuxuu ka hadlay baahiyaha ka jira cusbitaalka magaalada Burco. wasiirka caafimaadka oo arrimahan ka hadlay ayaa yiri wadanka Kenya magaalada Nairobi aniga iyo laba wasiir iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo agaasimayaal waaxidka qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta iyo agaasimaha xiriirka caalamiga ah wasaaradda arrimaha dibadda waxaan la kulanay hay'ado badan iyo safaarado badan oo aanu kala hadalay arrimo fara badan oo kala gedisan shaqada intii aanu wixii aanu socono dhan way noo soo qabsoomeen. labada wasiir iyo gudoomiyaha maxkamadda sare waxa uu anigu waxaan tartamaan galay tartankii waa dhageystan khudbadaydii waan haniyay waxaan u shaqeynayaa iminka waxa dalkii dadka mana jirto arintaasi waxa kama jiraan arinta waa iska dacay propaganda anigu inta xukuumadda madaxweynaha ka harsan dadkaan u shaqeynaya insha Allah. cusbitaalka Burco muddo 2 sanadoodaba waxa weeye shaqo gaabani way ka jirtay sababtuna waxay ahayd cusbitaalka waxa hayn jiray oo joogay hay'ad la yiraahdo MSF oo ka baxday 2013 intii ka dambeysay xukuumad ahaan cusbitaalka anaga kabaynay waxay awoodayda aan waa qabanaynay meel wacan hadda uu marayaa waxaan rajaynayaa insha Allah in ay dhamaato kacakufa ama dhibaatooyinka ka jira cusbitaalka waan u dadaalnaa insha Allah. wasiirka caafimaadka ayaa ka mid ahaa wafdi wasiiro u kictimay dalkaasi Kenya waxaana wasiirku markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inaanu marnaba ka dhex tartami doonin xisbigaasi u cidlana sii shaqayn doono xukuumadda madaxweyne Siiraanyo inta ka hadhay waqtigeeda. Ismaan Axmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.